TIENS has become a multinational enterprise group involved in biotechnology, health management, TIENS better one wall one family inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning Tienshe, good morning millionaire. الحمد لله رب العالمين. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السكالة ومالين كلا فرحات بدن حقيقي أين هو السوق أين ضدك دعوة كليبية دني خرق حفيز كالعجب عندك كمية تيانس قيبتي سيناي iyadoo aad ogtihiin oo dhammaan xafiisyada kala duwan dalka ku yaalo qaybihiisa kala duwan gobolada kala duwan iyo wadamada dariskaaba laga bixiyo abaalmarinta gawaarida lacag bixintooda ayaa maanta insha Allah dawladmo waxaan xafiiska siinay ku bixinaynaa abaalmarin gaari oo guddoonsiinayna dawladmo mid kamida dadkii ku guuleystay sanadkan 2022 abaalmarintiisa gaariga insha Allah dawladmo sidii aad hore ugu nooga barateena ma ahaan doono sanadkan gaari ugu dambeeyay gawaari fara badan ayaa jirto next week insha Allah dawladmo sidaan hore u soo ballanay mar walba dawladmo waxaan xagan soo day doonaa gawaari cusub iyadoo kambanigu mar walba uu dhiiri gelinayo bulshadiisa Soomaaliyeed dhiiri gelinayo dadka waqtiga gelinaya inay horumar sameeyaan nolosha ka sameeyaan maantana waxa miiska inoo saaran mid kamida dhalinyaradii maaragtay aadka u daada yaray kambani ku soo biiray muddo aan fogeyn ku soo biiray laakiin dadaal fara badan muujiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la garab galay dadkiisa caawiyay tiimam kala duwan ka dhisay wadamada kala duwan qaaradaha kala duwan ka dhisay tiimam xaqiiqdii ma sha Allah aan dhigi karo waa qof ku dayasho mudan maanta waxaan doonaynaa insha Allah dawladmo waa 15,000 oo dollar waxa miiska noo saaran 15,000 oo dollar $15,000 waxa muddada kooban ee uu kambaniga ka shaqeynaya ku guuleystay oo abaalmarin gaari ahaan u gudoomaya mid kamid ah dhalinyaradeena haddaan idin sheego magaciisa in badan oo kamid waad garan doontaan waa Abubakar Ali Abdi Wasa ninka la yiraahdo ma sha Allah waxaan leenahay young millionaire waxa saartay cagta wadadii guusha sidaad umada u caawinayso sidaad teamkaaga u dhiirigelinayso sidaad u tahay qof haliyay oo hogaamiya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku barakeeyaan leenahay adinkana waa idin soo dhaweyn doontaan intaanan ka bixin waxaan jeclaalahay qof kasta oo muuqaalkayga daawanaya wuu sameyn karaa fursadan way u furan tahay waxaan rajaynayaa dawladmo inaad milyaamaadka Soomaaliyeed ee caalamka kala joogo dalka iyo dibadda joogo ku soo biiray fursadan qaaliga ee gudoomay abaalmarinadan oo kale ee laga yaabo inaad kii saddexaad kii afaraad oo aad daawanayso uu yahay welina aadan isdiiwaan gelinin inaad isdiiwaan gelisho insha Allah dawladmo markan waxaan soo dhaweynayaa hogaamiyaheena si aan u guddoonsiino 15,000 oo dollar oo ku guuleystay isagoo kala darajada loo yaqaano Bronze Lion Distributor insha Allah dawladmo abaalmarin wayna socdaan soo dhawow hogaamiye mudane young millionaire Abubakar Wasa welcome ku soo dhawow lacagtaada Ilaahay ku barakeeyo shaqada aad qabataan waan kaaga hambalyeynaa lacagtaana waan ku guddoonsiinaynaa xafiis ahaan waxaan ku leenahay xagaa ka sii wada insha Allah dawladmo xajki umrada dalxiiski $100,000 $30,000 wali ku dhiman hawshu way soconaysaa insha Allah soo dhawow mudane alxamdulillah إلهي ومهد سكله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وإذن سلام يا دمان تيانس فاميلي والوايد ميل والبود عالم كجوكتان runtii maanta waxaan aad ugu faraxsanahay maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha 12 2022 inaan gudoomay ri'aan in badan waxa way runtii ku soo haminayay inay ii rumowday hadafkii iyo riyadii aan lahaa waxaan rabaa marka koobaad in halkaan uga mahad celiyo Allah subhanahu wa ta'ala oo i waafajiyay ii suurtageliyay waxa way la'aantiisna aysan ii suurtageli lahayn go'aanka aan u qaatay runtii kambaniga caalamiga TIENS oo la igu soo casuumay runtii 4 sano ka hor maanta aan ka shaqeynay 4 sano aniga oo ku sugan wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi runtii fursadana waqtigii warbixinteeda la isiiyay aan uga mahad celinayo wakiilkayga koobaad ee ugu soo casuumay runtii Faadimo Farxaan iyo sidoo kale Bishaara Maxamed Maxamuud waxa way runtii ableenadayda iyo sidoo kale dhammaan wakiiladayda sababtoo ahaa ganacsigan inuu isoo gaaro fursadana aan helo dhamaantiin waxa idin leeyahay runtii waan abaal baan idinka hayaa midaas marka labaad waxaan rabaa in halkaan uga mahad celiyo runtii managerka ama shop ownerkeena xafiiska Isli Maxamed Cabdullaahi Maxamed Carab oo runtii diiwaan geliyay in badan isoo dhiirigeliyay ganacsigan waqtigii aan soo bilaabayay intaas hadii aan mahad celinta uga gudbo runtii waxa farxad ii ah
waqtiga Tianis la igu soo casuumayay warbixintii la isiiyay ee maalintaas presentationka iyo xogta iyo macluumaadka la igu la wadaagay in ay ahayd in uu company-gan yahay company bixiya laba fursadood oo nolosha bini'aadanka aas u ah qofka bini'aadanka mid kamid ah hadii uusan haysanna uusan noolaan karin fursadda koowaadna inay tahay healthy shirkadu runtii inay caafimaad bixiso fursadda labaadna inay tahay wealthy dhaqaale runtii shirkadu inay bixiso waxaan soo shaqaynayay muddo 4 sano ah runtii maanta abaalmarintan aan gudoomay ee $15,000 ma ahan lacagtii ugu horeysay aan qaadanayo shirkadani waxaan ka qaataa weekly commission lacag isbuucle ayaan ka qaataa sidoo kale lacagtani waa abaalmarin ka madax banaan lacagteen aniga shaqaysanay ee commissionkayga ahaa abaalmarintan oo muujinaysa ama la igu dhiirigelinayo dadaal iyo juhdi iyo qiime aan soo bixiyay runtii waxa waa promotion ay shirkadu soo saartaa dadka badana waxa waa runtii Tianis lagu soo casuumo ama banaanada ka maqla waxa laga yaabaa in isdhahan lacagahan la qaadanayo waa lacag bakhtiyo nasiib ama dad gooni la siinayo laakiin lacagtan runtii ma ahan mid bakhtiyo nasiib ku timid waa mid aan ku helay juhdi iyo dadaal iyo qiime aan bixiyay shirkaduna abaalmarin ayay soo saartaa sanad walba abaalmarintaas oo ay ku sheegayso laga bilaabo xilligaas ilaa xilliga muddada cayiman hadaad shaqo intaas la ku qabato in aad helayso abaalmarin intaas gaaraysa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogtaan waxaad nasiib u leedihiin hadii maanta fursadan lagu soo casuumo inay tahay Tianis halkii noloshaada ku bedeli lahayd halkii isbedel ka samayn lahayd runtii Tianis waxyaabaha laga faa'iido qof walbana uu ku hamiyo waxa koow ka ah marka koobaad inaad ka helayso marka dhaqaale iyo wax walba laga soo tago self development horumar shakhsiyadeed inaad ka helayso aqoon inaad ka helayso sidoo kale maanta waxaan ku suganahay wadanka Soomaaliya magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiiska Siinay waxay ka dhigan tahay shaqadan waxaan iska diiwaan geliyay ka soo bilaabay magaalada Nairobi maantana waxaan lacagteedii ku qaadanayaa magaalada Muqdisho shop Siinay ayaan ku qaadanayaa halkaas marka waxay ka dhigan tahay ganacsigani inuu yahay mid international ah meel walba joogto oo ku sugan tahay in aad company-ga abaalmarintaada iyo commissionadaada aad xaq u leedahay inaad ka qaadato sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo runtii waxa waay aan dhaho shaqo qurux badan aad qabateen downline-kayga ama team-kayga meel walba ku sugan tihiin runtii meelo kala duwan ay aniga network aan ganacsigan ku soo casuumay kala joogan haday noqoto Soomaaliya gobolada waxa waay haday noqoto Kenya South Africa Mozambique Angola sidoo kale Europe runtii ganacsigani company-gani wuxuu xarumo ku leeyahay in ka badan 190 wadan wuxuuna ku shaqeeyaa nidaam loo yaqaano direct selling ama iibka tooska ah anigu waxaan ahay consumer macmiil wax soo saarka shirkadda isticmaala sidaas ay shirkaddu waxay ugu siinaysaa bonus at the same time sidoo kale waxaan shirkaddan u sameeyaa wax loo yaqaan marketing suuqgeyn ayaan sameeyaa waxaan awood u leeyahay anigoo ku sugan waxa waaye Muqdisho anoo ku sugan Nairobi in aan wax ka iibiyo dad ku sugan America Canada Europe qaab online ina uga iibiyo saleski aan wadamadaas ka sameeyayna commission-kayga week la aha runtii in la siinayo maanta runtii farxadeeda ma soo koobi karo hadal badan halman buuxsho waxay ka dhigan tahay maanta waa maalintii natiijada farxad ay ii tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo wakiilkayga garabkayga taagan runtii ableenkayga Xasan Cabdullaahi Daawud waxa waa runtii fursadan in badan igu soo dhiirigeliyay sidoo kale Mr. Ali Aadan Guleedo in badan muuqaalo badan ka aragteen asagoo dad badan lacag u guddoonsiinaya maantana maalinteeda aan nasiib u yeesho runtii inaan ka qaato ballanteenu waa in aan go'aan qaadano ficilna sameeyno better Tianis better one wall one family inshallah together we achieve inshallah Total investment, an annual output of over 30 million RMB. Tianyuan University has 10 billion RMB.